nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee tababarka saxaafadda ee wehelka wariyaha qaybtan saddexaad waxa aynu ku soo qaadan doonaa xeerka iyo anshaxa saxaafadda. warbaahintu waxa ay dambiile ka dhigi kartaa qof aan dembi qabin, waxa ayna dembiilaawe ka dhigi kartaa qof dembiile ah. waxaa sidaas yidhi Malcolm X oo u dagaalami jiray xuquuqda dadka madow ee dalka Mareykanka. dhinaca kale qoraa Jim Morrison asna waxa uu yidhi qof walba oo warbaahinta gacanta ku haya ayaa maskaxda dadkana gacanta ku haya. marka maxaanu ku qeexi karnaa anshax? maxaa habboon samayntooda, maxaase habbooneyn? waa qeexidda ugu sahlan ee macnaha anshaxa. shaqo walbana waxay leedahay xeer iyo anshax u gooni ah. warbaahintu waxay leedahay awood aad u weyn haddii dhinac wanaagsan iyo dhinac xun labadaba laga eego. tusaale 1994 dhimashada dad ku dhow 1 milyan oo qof oo dalka Rwanda ku dhintay waxaa sababay dhiirigelinta ay sameeyeen warbaahinta dalka Rwanda oo markaasi dadka ku dhiirigeliyay in ay xasuuqa ka qayb qaataan. joornaal la oran jiray Kangura oo dawladdu lahayd iyo waliba laba raadiyo oo mid u ahaa raadiyaha dawladda ee Radio Rwanda iyo raadiyo kale oo asna lagu magacaabi jiray RTLM ayaa lafdhabar lagu sheegay inay u ahaayeen hurinta colaadda. haddaba ilgaara ku hay xoogga ay saxaafaddu leedahay, mar walbana u adeegso dhinaca wanaagsan. qodobka labaad waa qadafka iyo sumcad dilka. xeerka qadafka iyo sirta shakhsiyadeed waa qodob ka hor istaagi kara markaasi saxafiyiinta inay helaan xornimo lama taabtaana, oo ma jiro saxafi leh xornimo jaantaa rogana amase dhammaystiran. waxaa mar walba jira meel ku soo celinaysa oo aadan dhaafi karin. taasi macnaheedu waa in saxafigu mar walba iyo had iyo goorba uusan sheegi karin waxa maskaxdiisa uu ka damco. sheekooyinka iyo wararka dhaawaca u geysan kara shakhsiga waxaa lagu magacaabaa qadaf ama defamation, waxaana suurtagal ah in maxkamad lala tiigsado saxafiga haddii uu markaasi uusan soo bandhigin caddaymo runa oo isku difaaci karo. inta badan sheekooyinka qoseeya shakhsiyadda macnaha qofka waa kuwo khatartooda wata inay meel uga dhacaan sirta iyo xuquuqda gaar ahaaneed ee qofka. markaan ka hadlayno qadafka, badi wararka iyo sheekooyinka dadka lagu sharaf dilo waa kuwo markaasi ku yimaada hubsiimo la-aan iyo fududaysasho uu saxafigu sameeyo. qodob wareedka dhaawici kara ama garaafo u geysan kara shakhsi ayaa ah midda lagu magacaabo sumcad dil ama qadaf. sirta qofka marka laga hadlayo, xeer walba oo saxaafadeed waxa uu ilaaliyaa in la dhowro sirta qofka. warka waa la daabici karaa haddii uu ku saabsan yahay qof magaca leh, isla markaana warkaaga qiimo iyo dhegaystaba u yeeli kara, isla markaasna aan dhibaato geysanayn. qadafku waxa uu ka mid yahay aagaga warbaahineed ee ugu khatarsan. sumcadda saxafiga iyo goobta uu ka soo shaqeeyaba waxay dhibaato weyn u geysan kartaa arrintaas. qadafku waa magac dil loo adeegsaday qaab qoraal, sawir amaba laga sidaayay radio ama telefishin. qofka oo markaasi nacayb loo abuuro waxay ka mid tahay sababaha khatarta ah ee ka mid a qadafka. qofka oo sharaftiisa meel looga dhaco iyo qofka oo la facsharo iyo qofka oo lagu maadsado dhammaan waa qaybaha qadafka, waxaana lagu mutaysan karaa ciqaab isugu jirta xarig iyo ganaax. arrimaha kale ee qadafka ah waxaa ka mid ah in wariyuhu dhaawaco sumcadda iyo magaca qof uu bulshada ku dhex leeyahay ama sumcad dheer oo dadweynaha ay ka aaminsan yihiin qofkaasi. qodobada kale ee muhiimka ah ee qadafka ka mid ah waa saxafiga oo ku dhaqaaqa arrimo uu dhaawac ugu geysanayo qof shaqadiis. waana xaqiiq haddii arrimahaasi dhacaan in wariyaha iyo goobta uu ka shaqeynayba garaafa ay soo gaarayso. marka aanu si fiican u kala caddayno, marka qadafku yahay qoraal oo lagu daabacay joornaal, majallad ama buug waxaa lagu magacaabaa libel. marka uu yahay cod
ama uu telefishin ka baxaba oo uu warbaahinta electroniga ka baxona waxaa lagu magacaabaa slander. markaasi labaduba waa qadaf oo qof sumcad dil loo geystay, hase ahaatee way kala khatar badan yihiin oo waxaa khatar badan oo laga yaabaa in ganaaxiisu ama ciqaabtiisu ay badan tahay midka lagu daabaco joornaalada. maxaa yeelay waxaa suurtagal ah in dadku ay kaydsadaan oo ay guryaha dhigtaan oo in badan ay sumcad daradaasi qofka loo geystay aysan ka bixin suuqa, halka raadiyaha iyo telefishinkuna ay si dhaqso ah markaasi ama loo tirtiri karo ama dib aan loogu soo celin karin. okay, maxaan ahayn qadaf marka? ayadoo ay xaqiiqo tahay qoraallo badan iyo sawirro badan inay waxyeelo u geysteen sumcadda dadka, haddana waxaama marka qaarkood suurtagal ah in la daabaco ama la baahiyo xog qadaf ama sharaf dil u muuqan karta. dhibna kuma jabna taasi waa haddii ay caddayn ku sugan tahay ama caddayn xaqiiqa laga bixiyo oo maxkamadeed. badi arrintan waxay dhacdaa marka laga hadlayo qof lagu soo eedeeyo xatooyo, kufsi ama khiyaano, maxkamadduna ay war cad ka soo saarto. markaasi saxaafaddu waa ay sheegi kartaa in ay qof ku xukuntay arrimahaasi. arrinta kale aan qadafka lagu tilmaami karin waa marka la hayo hubaal sugan. haddii qofku isku arka in la magac dilay uu isku dayo inuu dacwad furo, waxaa adag in dacwaddiisa ay maxkamaddu dhegaysato maadaama ay hor yaallaan markhaatiyo iyo caddaymo aan laga tallaabsan karin. arrinta saddexaad oo aan ku jirin liiska qadafka ama sumcad dilka ayaa ah faallooyinka iyo dhaliilaha ay sameeyaan tafaftirayaasha wargeysyada, kuwaasoo u muuqanaysa midaan shaksi lagu abbaarin laakiin si guud khaladaad iyo dhaliilo iyo toosinba u iftiiminaysa. xeerka caalamiga ah marka ee anshaxa saxaafadda waa maxay? qawaaniin iyo xeerar adag ayaa sal u ah xeerka caalamiga ah ee anshaxa saxaafadda. qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamku waa kuwo la kulmaya isbeddel horumarineed xilliyo ay u adeegayaan dad aada u fara badan. maanta warbaahintu waxay isticmaashaa teknolojiyad ama qalab lagu aruuriyo qoraalada iyo muuqaalada xilli ay ku socdaan xawli aan cid hor istaagi karin. horumarkan dhinaca aaladda ah ee lagu tillaabsaday saxaafaddu waxa ay u keentay in xogta iyo akhbaaraadka ay helaan warbaahintaasi inay ku faafaan caalamka waqti kooban. tan iyo curashadii warbaahinta casriga ah, warbaahintu waxay ahayd mid waasicinaysay aragtida guud ee dadka ay u adeegto. anshaxa warbaahinta caalamka waxaa markii dambe loo arkay inay tahay xeerka saxaafadda warbaahinta oo lasii balballaariyey. taasi waxaa lagu macneeyey in warbaahintu ay u shaqayso una hagto dadka qaab caalami ah oo ku wajahan adduunka, ayna u tarjunto dadka qawaaniinta anshaxa saxaafadda oo ku salaysan daacadnimo, xaglin la-aan iyo xornimo heer caalami ah. warbaahintu waxay isku aragtaa mid u shaqaysa qaab wakiil marka laga hadlayo heer caalami ah, hadafkoodana ugu horeeya waxa uu ku wajahan yahay wax u sheegidda dad aad u badan joogana meelo kala duwan. waxay warbaahintu u shaqaysaa matashaana bulshooyinka kala duwan. saxafiyiintu waa diidaan inay naftooda ku qeexaan inay ku xiran yihiin kooxo, ururo, gobollo ama deegaano. waxaa kaloo ay saxafiyiintu u shaqeeyaan inay sare u qaadaan fahamka warbaahinta ku aadan saxaafadda heer caalami. shaqada saxafiyiinta waxaa ka mid ah inay ka feejignaadaan dhinac u badashada xilliyada ay tabinayaan wararka xasaasiga ah. wararku waa inay ahaadaan kuwo run ah oo isku dheelitiran, waana inay u muuqdaan ilaha caalamiga ah ee laga soo xigtay wararkaasi si aada u bayaansan. si cad waxaa loo qeexay in saxafigu shaqo walba oo uu qabanayo inay tahay mid u adeegaysa bulshada. anshaxa waxaa macnihiisu yahay sidaan hore u sheegnayba qadaadhiga anshax suuban, howlgal mas-uuliyad ku dheehan tahay iyo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya dadka uu shaqaynayo saxafigu. waddan walba waxa uu leeyahay xeer saxaafadeed oo u gaara. hase ahaatee waxaanu soo qaadanaynaa qodobada guud ee laisku aqoonsan yahay ama sida guud loo wada ictiraafsan yahay. ko, warbaahintu waa goobo dadka ka dhexeeya, looma isticmaali karo si gaara. labo, warbaahinta laguma samayn karo faragelin hor istaagaysa habsami u socodkeeda. saddex, uma banaana warbaahinta inay soo bandhigto sawirro ka soo horjeeda anshaxa iyo dhaqanka. afar, saxaafaddu ma baahin karto wax ka soo horjeeda qarannimada waddan uu leeyahay ama jiritaankiisa.
uma banaana in warbaahintu ay dadka ku dhiirigeliso kacdoon dadweyne. warbaahintu waa inay dhexdhexaad u ahaataa dadka ay wakiilka ka tahay. bahda warbaahinta waxaa ka fog inay aqbalaan lacag ama laaluush. lama baahin karo dacwad been abuura, lamana faragelin karo arrimaha u gaarka ah ee dadka. lama daabici karo, lamana baahin karo wixii liddi ku ah dhaqanka iyo caqiidada ay dad leeyihiin. waa tahay saaxiibayaal, qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taxanaha inoo ahaa tababarka saxaafadda ee wehelka wariyaha intaasi aynu kusoo gabagabaynaynaa. waxaanu maanta kusoo qaadanay anshaxa iyo xeerka saxaafadda. inta aynu qaybaha kale mar kale isku arki doono, waa cabdulqaadir cabdulaahi oo idin leh nabadgelyo.